بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي ومهد سبحانه وتعالى، إلهي وكلي مهد له، إلهي وحن كبر سبحانه وتعالى، إلهي الروب دق نسيه أوارتنا قاعدة أدتك شو كل عيا كلك شنادنا دبالك وفي العين نقول وين وديار قرونا يعني ديجان كينا وصوفدين دولة إثيوبيا كلك محلنا قرقار كان قرقار كبدن ودول حوق له إنه حكميان به لما شدوا آد بي وبدن تاي يعني وحن كنت أنا أدو باقينا إنه أرنتا سيدك دقة مغلي وغش قيان إنه قلنا دوائنا إنه وحنا ترى كرنه وسيلة جهور تيجي لها إنه أرنتا قبلنا مركب كوسون قناعين أنا أقول لكم كم غلبلي وحوجات ذلك waxaan soo maray dalal badan alxamdulilah rabbi alcaalamiin lana waxa weeye qadiyadeena waa in meel kasta loo maraa qadiyadeenu waa inay doox hargeysa dhaafta magaalada laatin amerikaan tagnay xisbi ahaan dalal badan baan ku soo baranay saaxiibayo badan baan soo sameynay waxaynu ogaanay inaan ictiraafkeenaba aan dhibaato ku jireen inaga xaggeenu ay xagaleenu laaban yihiin waynu xaqeena doonan guul buu nagu soo dhamaaday alxamdulilah rabbi alcaalamiin ingiriiska waan xooga baan joogno ala kulana jaaliyadii waxaan soo gudbnay meesha la yidhaaho imaaraadka nasiib waxaan ku helay waatan hore u sheegaynaa waan socod badno waan la kulmaa un khayrka tiyo arrinta saldhiga berbera wafti u yimi waan ku biiray kani waa ka rasmiya anugu aan uga qayb galay waa dhammayn insha allahu tacaala kaas khayr minugu dhammaaday waan maqlay qaylo dhacaysa qayladaasna waxbay nagama gelin waa danteena waddan islaam ay noo yimi waddadii 20 sano لأن لها facilities تدي على سمينة على عقب الله أورونيا بربر تقوى شاله يلا نو سمينة إن شاء الله تعالى كرون كارجوا أو كين اللي نقول بدل سيفلين كهو على نو سمينة إن شاء الله تعالى حلوفين ويالنا الشيء كوا حكم ده إن إمارات إن عاويان حق النبي تقولي ده تعليم تا يا حاجة تنفع بقى هذا اللي نقول سوق الدرولو سيدي فرانسيسكو ولا لها جيبوتي أي يعني سين دونان وحاها هشيس ما كان سيد دي بيلس كدرة وحاها هشيس إنه موتشينيا وأدونك كريستيانية وشروطه احتراف بوحينيا إنه هيدل يدد يدول لسكو أمريكا وهنا كرتا دل كيدي قلنا كيدو تازو حسوا ديري قالين سا كومبليه بدن وذاك دون تمان لو بيشنا برنتا دمانين كومبليه بدن باينو إيمانية وقاركود إن شاء الله تعالى وحي وطن ديارده هودي جت برايفت جتس بوطن وحي حسود جيتي ومالجليكا يهشيس كان قال لي قفك كبوغا وقف تنقاره له وعدو كوي مدارات كل جاي كوي مدحك كها تسويره وين هيسنا هذه الدولة وحكي قاموا يدو إنك هدينا عندنا إن شاء الله تعالى وينو علامة سنين قفك عدو صورة أو تريتر وحلة شرعية قضاياش الشرعيين أغلبية كل شرعيين لقاها لما وصد الشرعي باسكاليين وكلاوي إن عدو قال له سفت معها وعرضوا معها إن دولة كهوريسا لبغنقوية معها إن عيب دلك وان لهين لشيء معها إن عيب تاع غريوي هذا عيب يشرتو لكن هو أنا كنت أنا ميديا هي معارضك أنت نسيالة ضدك لأن ما يلان هلا كلا صاروا شخصية يقارن كلا كلا صار معارضوا معها دولة العاية معها هذا حويه فكرة بالله ماذا تتكلم مديا ولا قفينا هذا waxaan ku tartamana ana ka barnaamij fiican laakiin ma ana ka tol fiican ma qabyad hada suulina insha Allah ta'ala
maanta foodku dhacaya waxa weeye maanta waxa loo footeynaya waa mustaqbal. Vote for your future baan leenahay. Vote for your future. mustaqbalka loo footeeyo. dalka isbedel buu baahan yahay. isbedel maaha in Faysal lagu bedelo maaha siinayo. waxa weeye in dalka isbedel weyn ka dhaca. maasig maanta siyaasaddu ma ka shaqeynaa horumar maynu keenin. waxaynu wada siyaasi ma noqon. tacliinta waanu adkaynaynaa insha Allah taala. guriyaha iskuulada dawladdu haysato waa tayeynayna. waxaan la baratinsiinaynaa kuwa private ah kuwa bara sharci baan ku soo rogaynaa. maaha inuu si biibitadii nin kasta meel inta qortay ilaa waa jaamacad iyo iskuul maaha. wala xisaabtamina curriculum ku xisaabtamina compound ku jira ma ku xisaabtamina macallimiintan ku xisaabtamina tayadii aan ku xisaabtamina insha Allah taala. caafimaadkan xoog saarayna kiiga horumarkeena waa waxbarasho idan xoog saaraya caafimaadka. laakiin maanta wuu daadsan yahay. shaqooyinkan xasan shaqo la'aan aad arto xamar maxay u tagayaan kuwan siyaasad maaha oo hunguri shaqo la'aan. dhakhaatiirtiina baa mudaharaad dhigaysa. ma adduunka dhakhaatiir buu leeyahay. ma waxaan ku tuusan weynay inaynu dhakhtaradeenna soo baxay ee jaamacada ka soo baxnay inaynu dadkeena u qaybina tuulo kasta geynaa lacag dheeraada siinaa hard allowance la siiya. waddankani waa qani laakiin wuxuu u baahan yahay maskax leadership buu u baahan yahay. dadku waynu kala foofaa siyaasadda qof kastaba waynu ka hadlin intii loo xil saaray waa in lala xisaabtanaa. waxaa loo sameeyey check and balance. golayaasha maxaa loo sameeyey? asxaabta maxaa loo sameeyey? guurta maxaa loo sameeyey? waa in la xisaabtamaa. laakiin dee waa inuu qofka qaadka gadaya qaadkiisa gadaa kalluunkiisa wataa shaqada la kala aadaa waana iskala diri insha Allah taala. Soomaaliya ka timi Soomaaliya ma jirto. waan maqlay ra'iisul wasaaraha laga dhigay isku haystay corruptionkiisa adduunka ka sheekeynayay wuxuu ku hadlayay kuwa caqli uma koro in la leeyahay toomaa shaqadeena qabsanayno. shaqadeena iyagu hoogoodu waxa way horumarkeena laakiin loo jawaabo maaha. maadaama ilaa ay calimaad ilaa kan maanta la doorsi wada hadlayaan oo ay maskaxdu koreen maskaxdu ma koriso. ilaa calimaad waa isku si on alaana wala ala yaashay war wala halka uu ka tagi. Soomaaliland ma mideen kana naga mideen carab mideen arxam ramadeen ceelbuur hataga wakaas waa ceelbuur kii la soo qabtay qashin laga soo qaadaa waxa soonaya. Soomaaliland war wala la nimanay waxmaan isku darsanay wax kala tagnay dee nabadgelyo. wax artay qof dukaan kula yeesho kii waan ku khasaaro waan ka dhoofay waan ka tagaya oo la haysa ma leeyahay iga tagin waan ka tagan. hada taada qabso ha noqon islaantii xaabada qaad weeyday tirtan ay ugu soo dar taada hagaajsan leh. laakiin waxa weeye we have to prepare for the meta wars scenario wax waa inaan ciidamadan hagaajisana waan u diyaar garownaa in maalmaanka nimanka ay seeli doonaan. la hadii ka hadu waayaan waa xoog iska reebta maxamed saad maxaa iska reebna xoog ma iska reebna ma inuu ducaan iska reebna dawlad siyaad waa iska reebna waa inaynu qaadka iska daynaa. waa in ciidamada wanaagsan oo mobile samaysanaa oo laga boqosay kuwa Israa'iil 100 milyan oo carabi jabisay iyadoo 4 milyan iyadoo 4 milyan 6-7 maxay ku tahay ku jirtay. maanta waxa loo baahay dad kala mideeyo. khaatimo waan soo dhameysana insha Allah taala. shirka khaatimo ka socda waxa weeye qodax gurki wadadii nabadda iyo wada noolaanshaha iyo wax walahaanshaha ayaan banaynayna. laakiin arrimi waaweynaa wali way harsay. hadda qodax waa dhameynay alxamdulillah rabbil caalamiin fariista aan ku dhamaanay. hadda waxaan gali doonaa insha Allah taala si Soomaaliland loo wada yeesha sideen dad qurux badan yeelana si dadka u mideynaa inagoo midaysan aloore hadii caqli keenaan la wada hadalla. hadda ka inagu si toos ah u doonana ixtiraafkeena anaga wixii hadaan nahay 2019 ka insha Allah taala badka halkaasaan soo dhignaa doorsi ixtiraafkeena iska daba laadlaadi mayno. Soomaaliland limbo daba ku noolaan maysa hadaan nagu soo galo wada. dawladdu waxa leenahay dadka hala mideeyo buuqa dadkan buuqaya dad sharci laga soo saaro. authority baatiin dawlad baatiin sharci qashay waa sharci inuu shaqeeyo. wali dawlad baqaan soo leeriya tamaan arkay. dawladda waa laga baqaa dawladda leerida maaha. waxaan leeyahay media waxaan leeyahay tradition leaderska waxaan leenahay walaalay ka daaya
foolxumadan iyo qabyaaladan lagu hadlayo ha ka duubina nin inta qof yaga soo taagay gabadh caytamisa saddex caytamisa dumarku saddex meelood bay ka xishooda mar waa gabadh waa guurmeel way xishoota mar waa la qabaa mar waa saddex markasta xishoodka ku jiraan dumarkan xishoodka way ka tageen caytamayaan bal wakaas cid Soomaaliya intaasoo dawladooda yar baa ka jiray intaas jiibay gabadh caytamisa saaray oo inta halkaas rag weyn caysa horaan waxay hadda saan noqotaan isku dhex kariskiidu ku noqdo iska karin jirtaa wadi waa intu fiican ba sameeyay laakiin siyaasadda ku bareeqateen asxaabta waxaan doonaa saddex cusbaan isku keenan doonaa saddex gudoomiye oo shirina wayna code of conduct samaysana wayna ka ilaalina mikrofoonka qof caytamaya oo shacabka loo garaaco oo amba xusbi caaya amba dowlad caaya amba qabiil caaya amba shakhsi caaya wayna ka yeelnaa heshiis iyo sharci la qabana arrinta waxaan ka hadlayaa nimanka xildhibaanada ee durbaanka galaan soo saanay kulmiyana أنا صدق لبعض شيء بلا نجي محكمة أنا ما كان دعوية عبد الرحمن ويدعوي محكمة اللي نجي أنا دعوية الكرسي يكون فريعة ولا يرجع سكرين واعي دعوتي على حقيقة وقال ما أنت كون فريعة إلى هي يجي كوصل لي ملك سكاء أشكتيني هو ما يجير ما نوط هذا أنا واحد غيبان أشكتيني قد ما نصار وإحنا وش يجينا رجع الشرع أرنتها خابن haddii sharciga loo sinaan waayo oo ka horeeya qabiilku ka shareeyo sharciga adna lagu ixtiraamayo kursi waxa ku fadhidaa magac Soomaaliland dawladnimo haddaad inaad ka taa sharciga qaban maayo ana sharcigaaga ma qabanayo absolutely ma qabanayo waxa la yiraahdaa sharci aan loo sinayn sharci maaha baarish loo isnadilo shacabka loo qabsan جمال بان سجلني وحايستي ديوان قلينتا إن عياله الشرعي كان أمين أنا وانا قاعد وحصول سارة وغيرين محكمة دارس قلت له إنا كلوها فريا بس نرى ساحلة وانا وقلاضي وحكت دبي قان كيسوا مغلسين ما ضحيت بس كهاير طاير دي باتمي أبسولوت أنا ويالين دولتنا وطن كان باون الشرع كل صعدة أمين وقبيل كل صعدة قبيل كان لقيت شوتشيو قفك الشرع هذا بقى ساسن خاصن لا كنا هاري ماينو ودتك soo baxayna maaha raga imanka suugiyo dhanba ku soo baxay foodkoodii marka waxaan leeyahay aynu dadka midayno sharciga ilaalino annagu haddaan soo baxno insha Allah taala wadankan sharci baan ku soconaa sharci waxaan ahayn waa loo sinaanaya biyaha waa loo sinaanaya shaqada hadii la yiraahdo khayraadka waa loo sinaanaya darajooyinka waa loo sinaanaya hargeysa waa ka saarina dawladda isku timee wadanku dhamaan gaarsiina decentralization ma sameeyna insha Allah taala daadijina tuulo kasta ha ismaamu saalana wasiirka wala dabageliya wasiirku ma qabiil uma fadhiya meesha wuxuu fadhiya ummadda waa in wixii soo baxa u simaa dadka xisaabtan baa imanaya hurdadaynu ka toosina insha Allah taala doorashada ka soo baxday Soomaaliya waa wake up call waxa weeye baraarujin weeye haddii maanta baraarugi weyno sida USCD loo qabsaday ayana loo qabsan doon Soomaaliya dulba lagama baraarujin Soomaaliya toosa ma jirto anaga keenay Soomaaliya toosa qodbadu bixinayo farmaajo wuxuu soo celinay cadaawadii Itoobiya iyo Soomaalida Soomaali weyn buu ku dhawaaqay taasna waxay keenaysaa inay geeska Afrika oo ka degay rabshadii Soomaalida ayuu soo celinaya anagu kulama jirno Itoobiya Kenya Djibouti kulama jirno wax shan Soomaaliya ma jiro wala kala foofay gurigooda hagaajisteen gurigooda uriye dadku hagaajisteen assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya waxaan ognahay in aan diiwaangelinta deegaanada ka dhacay aan ku hadlaa kale kamid ah diiwaangelinta arrintan maxaa kaaga qorshaysan in lagu celiyo diiwaangelinta
مثلا إساس أيضا كوري جنسا ارتعاد كبر يعني وحلا الشيء صوت لنا كيس كان اللي بعد ذلك كودين إن بقول أن يكون جديد ولا أو ما قررنا إسقاطين أن حركة هذا جمال عصر في حكي أنا إستدعى wuxuu arka qalad wuxuu dhan waxay ahayd in commissionku shaqo commission bay ahayd diiwaangelintu waxa weeye xisbiyada ku eegtaa dimuqraadiyadda doorashadu waqtigeeda ma dhacday foodkii ma qabtay soo u dhacay laakiin xildhibaan dhintay iyo xildhibaan meeshii ka baxay commission shaqo ku leh markaas waxa ku tuusaysaa inaynu ka baqanno xilka qofka hadduu xilka qabaanaba awood inuu noqdo mas-uul maaha laakiin waa la butulsanayna البطل إن شاء الله تعالى مركز كاس وامد طلبات وحوي مدحوين كحجينك إن شاء الله تعالى وقت بينه هرسن ولا هذا الصعداء سومالان وحن دون أن مدينه كان خاطوه حق الضمبية